warar maalimihii u dambeeyay soo baxayay oo sheegayay in macallimiin ka tirsan jaamacadda Hargeysa ay ku dhawaaqeen ururdiimeed wasiirka oo arintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri deegaanka khaldamay mala klibka arkay kama soo bixin jaamacadda Hargeysa iyo Meeltoona Muqdisho hada daawatay ma filay klibka dad Muqdisho joogan oo u hadlayay si runtii xishmad ay ku jirto akhlaaqna ay ka muuqato oo aad moodo inay ka gubteen in dhibaatooyinka ka jiraan ee dadka islaynaya ka soo jeeda Soomaaliya sidii ay u dejin lahaayeen waxaan muujinay mar aan argagixisay iyo waxa ku lug lahayn waa hore iyaga u taala taasi naga ilmo khusayso Soomaaliland ku jiraan wasiirka cadaaladda Soomaaliland sidoo kale waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyay maxaabiis burcadbadeeda oo xabsiyada laga sii daayay maantadan aynu hadlayno hal maxbuus oo kuwii burcadbadeeda kamid ahaa ayaa saaka airportkan ka duulay oo Muqdisho u duulay xarigiisana dhameystay waxa ka horeeyay 5 maxbuus oo iyagana sii diinay 7 bisha waxa ayna jiray 13 bisha 2 maxbuus marka tiradu waa 8 maxaabiistaasi waxa ay maxaabiis laga soo wareejiyay Seychelles heshiiska ka dhaxeeyay labada dawladood Seychelles iyo Somaliland oo xukunku ay ku dhameysteen halkan waqtigii ay dhameysteen markuu ka dhamaaday xaq waxa uu leeyahay la sii daayo marka maxbuus la xidho waxa uu leeyahay muddo cafisa oo laga dhaafo sanadkiiba waa hadii uu markaa mutaysto oo akhlaaq wanaag iyo dabeecad wanaag uu ku dhaqmo nidaamka loogu tala galay hadii se uu qof ku dhaqmi waayo wuxuu lumiyaa xuquuqdaasi nimankaas way ku guuleysteen alxamdulillah rabbil caalamiin waqtigii way dhameysteen dhimistay xaq u lahaayeen way heleen waana inba bixin Sir Ahmed Faarax cadare mar la su'aalay maxaabiistaasi burcadbadeeda iyo waliba deegaanada ay ka soo kala jeedaan waxa uu ku jawaabay shantii ugu horeeyay saddex waxay ahaayeen Muqdisho laba raxay Puntland ina kan u dambeeyay markana waxa ahaa Muqdisho saakan dhoofin Dardisaar أحمد فارح عذر وزير كعدالة سوماليلاند مر لسؤالي بلين محابيستا أي ما تسيد دايين أي مر لبعض كسو لابتان وحاو كجوابي runtii waxaan aad ugu farxay inuu yiri aqoontii cilmiga kitaabka naxwaha waa nimeeyay buu yiri carabigina waa bartay akhlaaqi asluub wanaag iyo diin waa bartay sida lagu la dhaqmay meedawaati xagga ciidamada asluubta wuxuu yiri anaga nooma joogaan dad soo booqda wax noo keena marka waxay noo ahaayeen waalid aad iyo aad noo daryeela wuxuu si aad u si amaanay dadkii u la xidhnaa dhalinyadii ee deegaanka ahaa ee wax loo keenayay ama raashin muhuba oo yiri kaanama aanu nahay ceesho madax walaal ah aynu qaybsananay dharka loo keenay waana qaybsananay cunto loo keenay qaybsananay halka waxa weydii markii ugu dambeysay maxaad filaysaa nin wax soo kororsaday oo mujtamaca caamka u tagaysiyo dadkii eheliyadii waxba ku soo kordhinaysa misaalka ku noqonaysa wuxuu yiri indhaha noo furmay ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad uu noogu tala galay bay ahayd wax loogu noqdo dib ma aha marka waxa ii muuqata oo afkooda ka haya in ay dadkaasi dad kullu loo dib ugu noqonayaan ahayn ay noqdeen dad mujtamacoodii iyo eheliyadii iyo mustaqbalkoodii wax u bergaya Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa